Marka taas
dadkii Soomaaliyeed ama hore gumaysigii ku haysay laakiin gumaysigii u adkaysanayeen laakiin hadda waxaa muuqata in shacabkii Soomaaliyeed uu baraarugay oo sida ay degmadaas ku baraarugtay ee u kacday inay hoose tahay shacab weynihii Soomaaliyeed oo wada baraarugay oo dulmigu meeshuu jira tooganaya aan iyagu isku jeedsanin meel aan waxba aan cadowgan abuuraankoodin ay cadow u arkaan baa jirtay cadowgoodiina ay walaan u arkaan sida aad ka arkayso madaxda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta siyaasiyiinta marka waxaan u arkaa baraarug Soomaaliyeed oo ah marka ugu horeeya si Soomaali xor ah oo sharaf leh oo adduunka iyo aakharaba magac ku leh ay u dhaqato in ay maanta baraarugtay oo bilowgii ay tahay waxaa weeye arrintaasu ma jirto cadowgu fikirkiisii ahaa qaybiinu xukunee uu Soomaaliya ku maamulayay 20 sannadood ee hadda Soomaaliya sidan ahayd ayuu hirgelinayaa wuxuu u tusayaa shacabka Soomaaliyeed in ay laba qabiil dagaalamayaan oo maleeshii reer hebel iyo waxaa dagaalamaya iyo reer